cibro qaado waxaad maqlayso hana kugu yeeshaan saameyn, maxaa yeelay waxa ku soo mari doona kelimaad beddeli doona masiirka noloshaada. Ku daya oo tusaale ka dhiga dadka suusuuban. Raadi oo akhriso taariikh nololeedkoodii. Waxaad heli doontaa Maalik ibnu Diinaar oo kale. Maalik ibnu Diinaar waxa uu ka mid ahaa culimmadii caanka ku ahayd Suudiga, iyo in adduunyo dhan qiimo aan la siinin. Waxaa wax laga weydiin jiray qaabka nafta loola jihaado oo loogu diido hawadeeda. Maalik ibnu Diinaar waxa uu ahaa nin hadalkiisa iyo wacdigiisa ku saameeya qof allaala qofkii dhegaysta. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la weydiiyey sababkii Allah uu uga badbaadiyey noloshiisii hore. Uu ahaa shiikhu mid khamrada aad u caba. Waxa uuna ku jawaabay sida tan: waxa aan ahaan jiray bilowga noloshayda nin askari ah oo aad u xooggan oo kakan, khamradana aad u caba. Anoo xaaladdaa ku sugan ayaan damcay in aan guursado, misna niyaddayda waxaa ku dhibcay inaysan jirin gabar xur ah oo dhowrsan oo iga aqbalaysa guur. Dabadeed waxa aan damcay in aan soo iibsado addooney. Suuqii ayaan tegay, waxaana guda galay in aan baaro addooney qurxoon. Isla markii ishayda ayaa qabatay addooney qurxoon oo aad mooddo wejigeeda dayax oo kale. Waxa aan iibsaday addooneydii, waxaana geystay guriga. Addoontii waxa ay dhashay gabar aad u qurxoon. Gabartii ayaan aad u jeclaaday. Waxa ay ahayd bilowga noloshayda. Markii ay garguurad gaartay, waxaa siyaaday jacaylkii aan u qabay. Waxaan isku dayay in khamradaan iska daayo oo waan kari waayey. Hase yeeshee mar allaale markii aan soo diyaarsado weelashii khamradaan ku cabi lahaa, waxa ii soo garguuran jirtay gabadhaydii yareed oo waa ay igu daadi jirtay. Aniguna kama xanaaqi jirin jacaylka aan u qabay daraaddii. Mar allaale oo ay iyadoo qoslayso maradayda ay ku daadiso, aniguna waan qosli jiray farxad iyo jacayl daraaddiid. Waxaa yaraaday oo isbeddelay khamro cabiddii. Waxa aan noqday mid caba marna iska daaya. Sidoo kale waxaan cabsi weyn ka qabay in maalin ay fahanto khamrada oo ay iga dayato. Waxa aan Allah ka magan geli jiray in aan ku khasaaro jacaylkeeda, oo aan Allah la hortaga dembigeeda iyo dembigayga. Markii awlaadda kale waalidkooda ay u naxariisanayaan inay aniga i lacnado, anigoo xaaladdaa ku sugan, si tartiib tartiibana isku beddelayo. Waxaa u dhammaaday gabadhaydii 2 sano, waana ay iga dhimatay. Gabadhii yareed waan murugooday, aadna waan uga naxay, ilaa aan ku laabto halkii aan ka taagnaa khamro cabiddii. Habeen Jimco ah, bisha Shacbaanna kala bar ay marayso, waxaan cabay khamradii si aanan hore ugu cabin, ilaa aan ka noqday qof dhintay oo kale. Dabadeed waxaan ku riyooday anigoo taagan qiyaamihii, dadkuna ay yaacayaan, aniguna aan ku jiro, aadna u murugaysanahay. Markaas ayaan maqlay cod gadaashayda ka dhawaaqayo oo aad mooddo codka abeysada. Waan fiiriyey, waaba mas aad u weyn misna dheer oo aad mooddo jiridka timirta, indhihiisuna gudguduudan yihiin. Afkiisana aad mooddo waranka afkiisa, gudihiisuna ay ka soo baxayso naar. Afka ayuu kala furay, wuxuuna soo aaday dhankayga. Waan ka cararay anigoo argagaxsan. Waxaa iga soo horbaxay oday duq ah oo tabar daran. Odaygii ayaan ku dhahay, i badbaadi. Allah ku badbaadiyey. Wuxuuna igu yidhi, waxaan ahay daciif sida aad arkaysaba, mana awoodi inaan kaa badbaadiyo maskan ee hore u carar. Waxaa laga yaabaa in uu Allah ku tuso sabab aad uga badbaado. Waan jeestay anigoo cararayo. Waxaa iga soo horbaxay naartii oo aad u karaysa. Waxaan u jeestay, dib ayaan u laabtay, welina maskii asagoo i ciirsanayo. Odaygii ayaan u soo laabtay mar labaad, waana ka badbaado dalbay. Wuu ooyey naxariis oo ii naxariisanayo. Waxa uuna igu yidhi, sida aad arkayso waxaan ahay daciif, mana awoodo inaan kaa badbaadiyo, ee waxaad u carartaa buurtaas dhankeeda. Waxaa laga yaabaa in Allah uu kugu badbaadiyo. Buurtii ayaan tegay oo waan fiiriyey. Waxaa ka dul dhisan guri weyn oo daaqado leh. Gurigii xaggiisa ayaan u cararay, iyadoo maskii weli i daba cararayo.
waan gaaray. Dabadeed waxaa la furay daaqadihii oo dhan, daahmankiina kor ayaa loo qaaday. Markaas ayaan arkay carruur wejiyadooda ifayso. Maskii ayaa ii soo dhowaaday, anigoo taagan meel eber ah. Afka ayuu kala qaaday ilaa ay uga hartay inuu i cuno mooye. Carruurtii ayaa wada qayliyeen, ayagoo ku qaylinaya, Faadimooy, waaba gabadhaydii oo dhankayga u soo cararayso. Markii ay aragtay xaaladdan ku suganahay, waa ay qaylisay, waana ay ooysay. Kadibna dhankayga ayay u soo boodday, waxa ayna ii soo taagtay gacanteeda bidix, waana qabsaday. Maskiina waxay ku taagtay gacanteeda midig, waana uu cararay. Dabadeed waa ii fadhiisisay, anigoo cabsi la dhima rabo. Iyadana waxay ku fadhiisatay dhegtayda, waxa ayna gacanteeda iga qabatay garka, iyadoo dhahaysa, yaa abati alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikrillaah. Waan ooyey, waxaana ku dhahay, waxaad ii sheegtaa waa maxay maskan doonaya in uu cuno? Waxa ayna igu tiri, waa camalkaagii xumaa, adaa xoojiyey ilaa uu ku sigto in uu ku dilo. Waxaan kaloon ku dhahay, waa maxay odaygan tabarta daran ee kari waayey inuu iga badbaadiyo maska? Waxa ayna igu jawaabtay, aabbow, kaasina waa camalkaagii suubanaa, adaa saas ka dhigay ilaa uu kaa celin kari waayey camalkii xumaa. Haddii aanan anigu ahaan lahaynna waaba ku cuni lahaa. Intaa kadib waxaan ka soo toosay hurdadii, anigoo argagaxsan. Waxaan go'aansaday in aan nafaqeeyo odaygii tabarta darnaa. Subaxii ayaan masjidkii aaday oo weydiiyey dadkii towbada iyo axwaasheeda. Waxa ay tusiyeen Xasanulbasri xalqadiisii, waana fadhiistay, waaba asagoo fasirayo, alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikrillaah, aayaddii ay gabadhi xal akhrinaysay. Wabilaahi towfiiq, sala allahu